Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaa jira ereyo qaar oo micno guud wata, balse aanay dadku filayn haddii la kala gooyo inay laba eray oo kala madax bannaan noqonayaan. Erayga farxad guud ahaan haddii loo fiiriyo micno guud ayuu yeelanayaa, balse haddii aan kala goyno waxaa soo baxaya far oo ah taqaan iyo xad oo amar ah, sida Heblow waxaas xad. Erayga dhakhtar oo haddii guud ahaan loo fiiriyo micno guud ayuu yeelanayaa, balse haddii aan kala goyno waxaa soo baxaysa dhaq oo amar ah iyo tar oo iyana amar ah, sida waxtar. Erayga aamus oo haddii guud ahaan loo fiiriyo micno guud yeelanaya, balse haddii aan kala goyno noqonaya aam oo ah lahjadda Maaymaayda oo la mid ah cun iyo us oo ah amar. Erayga tarmuus oo haddii guud ahaan loo fiiriyo yeelanaya micno guud, balse haddii aan kala goyno noqonaya tar oo aan hore usoo sheegnay, iyo muus oo la cuno, wadartuna waa tarmuus. Erayga masjid oo haddii aan guud ahaan u fiirino yeelanaya micno guud, balse haddii aan kala goyno noqonaya mas oo ka mid ah xamaaratada ugu khatarta badan, iyo jid oo la marayo, wadartuna waa masjid. Erayga guul oo haddii guud ahaan loo fiiriyo noqonaya micno guud, balse haddii aan kala goyno gu noqonaya gu oo ka mid ah xilliyada adduunka, iyo ul oo ilmaha lagu tumo, wadartuna waa guul. Kuwan iyo kuwo kale oo fara badan ayaa jira. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe saar, sheerna dheh saaxiibadaada si aad ula wadaagto.